waxaan inii soo gudbin doonaa saddexda dhisme ee ugu dhaadheer ama saddexda dabaq ee ugu dhaadheer adduunka. ka koowaad waxaa ku jira oo loo diiwaangeliyey Burj Khalifa oo ku yaala Dubai oo dhererkiisa lagu qiyaaso 830 mitir lagu qiyaaso. waa dhismaha ugu dheer adduunka. dhismaheena labaad ee adduunka ugu dheer waxaa lagu magacaabaa Shanghai Tower. waxa uu dhererkiisa isna lagu qiyaasaa 632 mitir, waxaana uu ku yaalaa dalka China. waxaana loo diiwaangeliyey dhismaha labaad ee ugu dheer ama dabaqa labaad ee ugu dheer adduunka oo idil. dhismaha saddexaad ee isna loo diiwaangeliyey inuu yahay kuwa ugu dhaadheer ama kuwa ugu dheer adduunka waxa weeyaan Mecca Royal Clock, saacadda ku taala amba dhismaha ku yaala Saudi Arabia ayaa isna waxaa loo diiwaangeliyey inuu yahay ka ugu dheer. dhererkiisana waxaa lagu qiyaasaa 601 mitir dhererkiisa. waxaa